الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والحوض دركي الذي كاسو أكرمه الله إلهي كرامي كشرفي تعالى إلهي كريه به النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرامي كشرفي غياثا لأمته قرقار أمتي سمركا وقرقاريه يعني وشرفي حق ويه. waxaa halkana inoogu tilmaamayaa sheekhu i'tiqaadka ahlus sunna wal jamaa inay kamid tahay xawdka nabiga ama darka nabiga sallallahu alayhi wasallam in la rumeeyo. darka nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ku soo aroortay adilla badan. adilladaas waxa kamid ah aayaadka quraanka waa laga qaatay: inna a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey: ma garanaysaan waxa weeye malkawthar waxa kawtharku yahay ma garanaysaan? markaasay yidhahdeen allahu warasuuluhu aclam, ilaah iyo rasuulkiisaa og ayay yidhaahdeen. markaasuu yidhi huwa nahrun acطaanihi rabbii caza wajalla fi ljanna calayhi khayrun kasiir taridu calayhi ummatii yowma alqiyaama aaniyatuhu cadadu lkawaakib. waxa weeye waa webi ummaddaydu ay u soo aroorayso. riwaayaadka qaarkoodna waxay tilmaamayaan huwa xawdun taridu calayhi ummatii, waa dar ay ummaddaydu u soo aroorayso. marka culammada qaarkood waxay yidhaahdeen yani kawsarka iyo xawdka, yani kawsarku waa webi weeye, xawdkuna waa farac markaa yani webigaa ka imanaya oo laba dhuumood ay soo gelayaan, oo labadaa dhuumood markay soo galaan ayay markaysagaa keenayaan biyihii markaysagaa baddaas, biyihii webigaas bay keenayaan. marka sifada lagu sifeeyey axaadiista rasuulku sala allahu alayh wasalam ay ku sifaysay waxa weeyaan in biyihiisu ay yihiin qaar markaa ka macaan malabka, oo kana waxa weeye yani cad caanaha, kana macaan malabka, kana udgoon miskiga. waxaana laynagu tilmaamay inuu markaa yahay darkaasi mid ballaadhan inuu markaa u yahay, oo aad u weyn inuu markaa u yahay. weelka lagaga cabbayaana xidigaha cirka inay la mid yihiin, waxay kala mid yihiin xagga wadaa'ada iyo xusniga iyo wanaag iyo quruxda, waxay kala mid yihiin xagga tirada iyo faraha, labada mid walba waa la yidhi. darkaa ciddii marka cabta weligii dib uma harraado. النبي صلى الله عليه وسلم waxa uu tilmaamay: إني فرضكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. ninka igu soo maraa waa cabbaa, ee bimacnaa sabab looga celiya aynay jirin. kii markaa ka cabbaa qurqurana weligii dib uma harraado, weligii dib uma harraado. layaridanna calaya aqwaamun acrifuhum wayacrifuunanii uma yuxaalu baynii wa baynahum. yacni dad baa markaa nala kala teedaya, dadaan garanaya igu iman doona, dadkaasaa dabeedna markaa nala kala teedayaa oo markaysagaa laga celinaya darka. xadiiska bukhaari saasuu tilmaamaya, xadiis kaleoo muslimna macnahaasoo kale uu tilmaamaya, oo uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam: layudaadanna rijaalun can xawdii kama yudaadu lbaciiru daallu unaadiih. yacni markaa dad baa waxaa laga eryi doonaa darkayga sida awrka baadida ah ceelka ama darka aanu lahayn looga eryo oo kale ayaa dad markaa looga eryi doonaa darkayga. saasuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam. waxa uu tilmaamay markaa inuu dadkaa garanayo, uu odhanayo asxaabii asxaabii. riwaayaadka qaarna waxay sheegayaan ummatii ummatii, wuxuu yidhahdaa waa ummaddaydii ummaddaydii. qaarna waxay sheegayaan asxaabii asxaabii. qaar saxaabaday tasgiirinayaan usayxaabii, saxaabadaydii yaryarayd weeye ayaan markaa idhaahdaa. markaasaa laygu yidhahdaa: innaka laa tadri maa axdasuu bacdak, adigu ma garanaysid waxay dabadaa soo darrisiiyeen, garan maysid baa laygu yidhaahdaa. saasuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam. kamay suulin inay cilbahooda dib uga laabtaan. markaasaan dabeedna yidhahdaa markaysa waxaan markaa fogaanshaha u sugnaado, ay naarta ku fogaadaan. marka arrinkan ay sameeyeen ee ah markaysagaa riddada ah, culamada qaarkood waxay yidhahaan riddadu waxa weeye waxaa looga jeedaa riddatun can isunna, waa ridda sugra, riddo yar baa laga tilmaamaya, waa riddo sunnada laga ridoobay. waana sida shaatibi markaa uu ku marayo kitaabkiisa la yidhahdo al-ictisaam ee qayimka ah.
marka ahlulbidac hadday yihiin markaa khawaarij iyo yani markaa murji'a iyo jabariye iyo muctasile iyo firaqaa lumay waxay markaa yani u munaasib yihiin in kuwa laga celinayo darka nebiga sala allahu alayh wasalam ay noqdaan. qowl kale wuxuu leeyahay maye riddada markaa laga tilmaamaya xadiiska waxa weeye waa ridda kubra, waa riddo weyn, waana riddo markaa milladda iyo diinta laga ridoobo, nacuudu billahi min ariddati kulliha. marka sidaas iyadaaba ahlucilmiga qaarkoodna yidhahdeen. marka calaa kulli xaal taasi waxay markaa ku tilmaamaysaa darka nebiga sala allahu alayh wasalam dad laga celinayaa inay jiraan, waxa lagaga cabbayaana inay tahay yani sidii markaa shareecada loogu qumanaa inay sidaas yadaa tahay ayay markaa faa'iidaynaysaa ama inoo tilmaamaysa. sidaas ayay markaa inoo tilmaamaysa. waxaa kaloo xadiidkaasi daliil u yahay nebigu sala allahu alayh wasalam inaanu ghaybka ogayn, bes wixii laga ogeysiiyey keliyuu ka og yahay, waxa aan loo waxyoonin nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ma oga. nebi moxamed sala allahu alayh wasalam waxaan loo waxyoonin caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa ghaybihi axada ila man irtadaa min rasuul inaka laa tadri ma axdatu bacda. waxaa kaloo uu sii markaa caddaynayaa dacfiga xadiidka bakr ibnu cabdillaahi almuzani, nin taabiciya baa xadiis mursala soo wariyey, xadiiskaasoo odhanaya nebiga uu ka sheegayo oo uu odhanayo waxa weeye nebigu waxau yihi sala allahu alayh wasalam waxaa laygu soo bandhigaa qabriga acmaashii ummadaydaa laygu soo bandhigaa, haddii aan wax khayra helo oo aan acmaasha ummadayda ku ogaado wax khayra ilaahay baan mahadiyaa, haddii waxaan khayr ahayn aan ku ogaadana waan idiin dembi dhaaf dalbaa. xadiiska macnihiisu saasuu tilmaamaya: xayaatii khayrun lakum wa mamaatii khayrun lakum wa ina acmaalakum latucradu calaya fii qabrii fain wajadtu khayran xamidtu allah wain wajadtu gayra dalika istakfartu lakum. xadiidka bakr bnu cabdillaahi almuzani oo taabici ah baa soo wariyey, waa mursal saxiixu lisnaad ah. mursalkuse waxa weeye sida raajixa ah ee qawiga ee jamaahiirta culammadu ay mareen waxa weeye inuu min qismi daciif ka mid yahay. riwaayo kaloo la soo wariyey waa jirtaa oo cabdillahi ibnu mascuud laga soo wariyey, laakiin culammada muxadisiintu waxay ku khata'nimo xukmiyeen riwaayadaas inay wahmi tahay ayaa a'immada muxaqiqiinta ee muxadisiintii ay caddeeyeen. yacni marka a'immada muxadisiinta ah ee muxaqiqiintii waxay caddeeyeen riwaayada kale inay markaa tahay wahmi ama khata' inay tahay oo ku dhacay inay tahay. sidaas aawadeed dariiq kale oo lagu xoojiyo ma laha. wuxuu kaloo caaridayaa axaadiista saxiixa buu caaridaya oo xadiiskan markaa saxiixa ah ee waxa weeye yani bukhaari iyo muslimba ay soo wariyeen, waxa markaa uu tilmaamayaa in nebiga lagu yidhi sala allahu alayh wasalam garan maysid waxay dabadaa la yimaadeen. marka acmaasha ummaddiisana haddii loo bandhigi jiray wuu garan lahaa, waxay dabadii la yimaadeen wuu garan lahaa. sidaas aawadeed wuxuu sii caddaynayaa xadiistan saxiixa ahi yani dacfiga xadiiskaas ayuu sii quweynayaa oo tilmaamaya inuu daciif yahay sii caddaynaya. dacfiguu sii caddaynaya, quweynaya malaa si kalaa loo qaadan karaa. waxaa la yidhahdaa qiso yaroo dariif ah. imaamu shaafici baa muzani baa ku yidhi bay yidhahdeen qawa allahu dacfak, ilaahay dacfigaaga iyo taagdarridaada ha quweeyo. markaasuu imaamu shaafici isagoo la kaftamay wuxuu ku yidhi hadduu ilaahay dacfigayga quweeyo waa dhimanayaaba, waa dilayaayo waan dhimanaya. ila taagdarridii hadduu quweeyo taagdarridii baa sii fara badanaysa, markay sii fara badato inaan dhintaa ka dhalanaysa. markaasuu sheekh saa uma jeedo, intuu markaa naxay sidaa uma jeedee muraadkan uga dan leeyahy markaysaa waxa ilahay dacfigaa kaa xoojiyaan uga jeedaan oo waxa weeye quwaha ku siiyo. markaasuu yidhi haddaad marka hadal caya ku hadasho waxaan markaysaga waa garanaya markaysaga inaan xumaan uga jeedin xumaan inaan uga jeedin waa garanaya, laakiin eraygaagu maan markaa istidraakaya. marka dacfiguu sii quweynaya muraadkan uga dan leeyahy waxa weeye bimacnaa wuxuu sii caddaynaya inuu xadiiskaasi aad daciif u yahay ayuu sii caddaynaya. saasaan uga jeeda. ahlucilmigu waxay isweydiiyaan siraadka iyo xawdka iyo maa horeeya. masalada noocaasna ahlucilmigu way isku khilaafeen, laba qowl bay ka leeyihiin. bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxa horeeya darka ayaa horeeya oo markay darka ka cabbaan ayay dabeedna jidka siraad marayaan. bacdina waxa weeye sida kale ayay arjixeen, sida kale ayay markaa arjixeen. sida markaa sheikha yani uu marayo
aad moodo inuu xoojinayo qurtubi iyo ibnu kasiir baa isku khilaafsana midba qowl buu leeyahay inkastoo ra'yiga ibnu kasiir aanu sheegin haddana calaa kulli xaal abu cabdillahi alqurtubi yani waa saaxibu tafsiir kitaabkiisa atadkiratu liaxwaali lmawta ayuu ka soo roraya waxa uu tilmaamayaa inuu quweynayo inuu xawdku horeeyo xawdku inuu ka horeeyo yani ka horeeyo yani markaa jidka siraad inuu ka horeeyo sidaas iyada ah ayuu markaysa waxaad markaa yani quweynaya marka calaa kulli xaal yani mas'alada noocaasa waxba yani mas'ala markaa yani wax weyn kuma tacalluqaan in markaa ta horaysa in la ictiqaadiyo yani daliil cad haddaan lahayna waa la iskaga tawaaqufi karaa marka calaa kulli xaal taas yani ku saabsan xawdkuna sidaas iyadaa weeye in la inkara maaha axaadiista kusoo aroortay waa axaadiis fara badan 30 saxaabi in ka badan baa soo warisay aayadda qur'aankana waa lagu fasiro nebiga sala allahu alayh wasalam baa ku fasiray ama waxa weeye xawdku kawsarka ha ahaado ama markaa biyihiisu meeshay uga imanayaan markaa waxa weeye ha ahaado kawsarka ha ahaado meeshay biyuhu ka imanayaane ee xawdka uga imanayaane kow doonaba ha noqdee daliil waa u tahay markaa xawdkii ambiyada kale xawdad ma leedahay oo darar ma leedahay ummadooda u soo aroorto mise ma laha mas'alada noocaasa qudheeda xadiis baa ku soo aroor oo nebigu sala allahu alayh wasalam tilmaamayo ina likulli nabiyin xawda yani markaa nebi kastaba xawd baa u sugnaaday xadiiskaasna markaysagaa tirmidi iyo dabaraaniya baa soo wariyey yani sanadkiisana waxbaa ku sugan laakiin turuq mutacadid uu leeyahay sidaas aawadeed sheekhu albani waa quweeyey siduu tacliiqiisa markaysagaa ku tilmaamayo oo waa taxsiiniyey sheekha abu moxamed albarbahari la yidhahdaana kitaabkiisa la sharxu sunna waxa uu ku daray markaysagaa ictiqaadka la ictiqaadinaya inay ka mid tahay ambiyada kalena inay xawdad leeyihiin in la ictiqaadiyo sidaas iyada inay ka mid tahay ha yeeshee hal buu istisna geliyo wuxuu ihi waxaa laga reebayaa nebi saalix oo isaga waxaa xawd u ah yani hashiisii yani markaa naaskeedii baa markaa dar u ah yani laakiin taasi wax daliila ma laha waxa lagu soo wariyeyna wax asaxay ma aha sidaas aawadeed itlaaqeeda loogu tegayaa oo waxa weeye waa in markaa ambiyada dhammaantood mid waliba xawd leeyahay ama saalix ahaade ama kayrkii ahaade wallahu aclam walxawdu darkii aladii kaasoo akramahu llahu ilaahay ku karaameeyey tacaala ilaahay korreeye bihi nebiga sala allahu alayh wasalam ku karaameeyey bihi isaga uu ku karaameeyey yani marka akramahu hudaa u noqonaysa nebiga sala allahu alayh wasalam alladii kaasoo akramahu uu ku karaameeyey yani hu nebiga sala allahu alayh wasalam allahu ilaahay tacaala bihi markaysaga waxaan markaa kaas xawdka ah yani khiyaasan liummatihi gargaaru ummaddiisa u gargaaraya darteed ugu karaameeyey xaqun xaq weeye wshafaacatu alatii idakaraha lahum xaqun kama ruwiya fi lakhbaar wshafaacatu shafaacadii alatii taasoo idakaraha lahum uu u kaydiyey ilaahay markaa uu kaydiyey lahum markaa iyaga uu u kaydiyey yani marka ambiyada iyo saalixiinta iyo xaqun xaq weeye kama ruwiya fi lakhbaar sida markaysagaa loogu soo wariyey yani akhbaarta ama axaadiista yani lafdu ruwiya inuu isticmaalo sheikhu ma fiicnayn waayo culamada markaysagaa xadiisku waxay sheegaan sida kutubulmusطalaxba muqararka ku ah yani waxa weeye siiqada ruwiya iyo xukiya iyo nuqila iyo erayada noocaas ah waxaa loo isticmaalaa wixii ama yani dacfi lagu og yahay amaba waxa weeye laga shakisan yahay sixadooda ama wixii markaysaga waxa sixadooda la hubo waa in siiqa jazmiya lagu sheego ayaa fiican marka aadaabta noocaasna waxa weeye waa miday marka culamada muxadisiintu ku dareeraan inkastoo qolada fuqahadu aynay sida badan yani aynay ku taqayudin oo ay khilaafaan marka kama habata fi lakhbaar baa ka fiicnaan lahayd marka shafaacada waxa weeye xaq weeyaan anwaacda shafaacada ee ku soo aroortay adilada kitaabka iyo sunnada iyadana waa xaqo waa in la sugo oo la ictiqaadiyo taasna waxa weeye ilaa 8 nooc oo shafaacada ayaa soo arooray shafaacana asalkeeda waxaa la yidhahdaa dalab baa la yidhahdaa min ashafci baa laga keenay shafci waxaa la yidhahdaa lamaanaanshaha la yidhahdaa lamaanaanshaha ayaa la yidhaahdaa oo cid haddii yani cid haddii loo ergeynayo yani waa lagu lamaanaadaa cidda wax lala rabo ee wax lala doonayo yani waa la raacaa sidaas aawadeed baa markaysagaa shafaaco yani lamaanaanshaha shafci looga soo qaatay oo looga keenay marka waxay tahay waa dalab ilaahay laga dalbayo oo markaa makhluuqaadkiisa qaarkood oo darajo iyo fadli agtiisa kulihii ay cid kale ilaahay wax u weydiinayaan oo uga dalbayaan
نبينا صلى الله عليه وسلم وحول اشفعوا تؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب شفاعة قادوا وإذن أجر سنه من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها مركا وحوي على كل حال يعني شفاعة آخره يعني دتك قار لو شفاعة قاضيه وأما أنبياء شفاعة قاضيان أما ملائكة شفاعة قاضيان أما الصالحين شفاعة قاضيان حقويا شفاعة القرآن كوحلو شيء إلا بالنوع شفاعة مثبتة وشفاعة منفية شفاعة للسجي هي شفاعة للنفيي لبضع قيبوت بيقيب سنتا شفاعة مركا للنفيي وحوية وشفاعة أن إذن كإلهي كحدنين يعني عذان إلهي اعتقاد كيسان وكرر لأنه قلنا الله شفاعة قاضية وشفاعة سوحيتي شفاعة منفية وشفاعة للنفي وكذلك قالوا شفاعات كالله شفاعة قاضية لفتد وشفاعة منفية وحكم إذا مركا أدلة الشيء يسا شفاعة منفية فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني وحوى يكون شفاعة قاضية شفاعة دودو أنفع ميسو ولا شفيع يطاع بكم إذا يعني وحوى يعني مركا من شفاعة قاضي الله أطيعانه يعني أمسقناني marka sidaas aawadeed shafaacadu nooc waxay tahay manfiya noocna waxay tahay musbata shafaacada la sugayna adilla badan baa ku soo aroortay waxa kamida wala yashfa'una illa liman irtada waxa kamida man alladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi oo waxa weeye istisnaagu al-istisnaa ba'da nafyi isbaatun bay ahlu ilmigu yiraahdaan istifhaamka horena wuxuu u dhacayaa macna nafyi buu u dhacayaa istifhaamun yuraadu bihi nafyu marka la ahad yashfa'u indahu illa bi idnihi bay noqonaysaa cidu ilaahay u fasaxo يعني الله شفاعة قاضية معنه السلاس يدا أي مركا ودعيسا وكذلك وحكم إذا قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يعني وحوي ملائكة تقول دون شفاعة قاضية لكن إذا كإلهي يرى لها شيء سيني كل حرنتهاي عدة شفاعة قاضية وعدان إلهي أفصحين إنه شفاعة قاضين أي لين الشاقع مركا قال ذا من كان لي هذا مشركين تو شفاعات باعتقاد ثنايين شفاعة دول البرين oo waxa jirta marka cid ay adduunyada intay ku caabudaan uga jeedi jireen inay aakhira uga shafaaco qaadaan ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعني إلهي سكدي بي waxay caabudayaan qaaraan dhibayna anfacayna markaasay waxa oranayaan kuwaasi ilaahay agtiisa inooga shafaaco qaadayaan bay oranayaan shafaacadii bay waxay doonayaan adduunyada inay kula ballansadaan oo waxa weeye intay markaa yani qurubaad u sameeyaan oo waxyaalo ugu dhawaadaan sida dadka qaarkood hadda ay sameeyaan oo markaa waxa weeye dad ay markaa yani u malaynayaan inay awliye yihiin inay markaa waxa weeye xidhiidh la yeeshaan oo ay markaa wardigooda markaysaga waxaan markaa akhriyaan oo ay markaysaga qurbaad u sameeyaan nadara u sameeyaan siyaartaan wax u gowracaan waxyaalo badan oo noocaasa ku sameeyaan muraadkay uga dan leeyihiin ay tahay inuu ilaahay agtiisa uga shafaaco qaado waa arrin shabaha arrinkii gaaladu markaa ay samaysay oo kale يعني أرن شبه ويه أو مركا وحويه يعني تاسي مد مشروع بنان معها وحنا نقول إنسان مركا يسقى شفاعة مركا يسقى شرك جاهي أي نقول إنسان القرآن كنا فيه نوع سوي أو وحي يعبد إلهي مركا عدة كسر كيس وحي أهيد إلهي أكتسا إذا كشفاعة قاضى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى سيدا سيدا أبا مراد كودوها مركا تنوع سوي وحويه ومد باطلة وأنا مد مركا يسقى شرع قبوريي ويان واحد دليل أنا مركز سجى ملها بل أدلة كتابك يا سنة هي إجماع أنتم وحوي وديديان أو النفيريان شفاعات كقاركودنا وشفاعة حقا وشفاعات كمركز سجى إذا كإله يرى لها شيء سكحرا يعني وحوي أعدوا إلى هاي فصحية كرها للنقضي يعني توحيد كيس اعتقاد كيس وكرها للنقضي إيمان كيس يعني إن لو شفاعة قاضو تاسو حيتهاي يعني مركا متجرتا وأدلة أي سجيسو أدلة كتابك يا سنة مركا شفاعة وحيوقع بسنتا سجاني مذو حوي يعني أي ولاجا النبي صلى الله عليه وسلم يا أنبياء كلا يا مؤمنين يا ملائكة أنتم بأي ولاجان يا مذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقاري هاي أنت بوالد هاي قريها قاركود عقلانية كم إذا وحي إلى شفاعة واجرتها لكن وحوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكلية شفاعة قاضية عد كلمة شفاعة قاضية أرن كنوع سياسي لهذا أنه أرن باطلة
waayo adilada kitaabka iyo sunnadu waxay diidaysaa in shafaacada lagu xasriyo yani lagu xasriyo rasuulka sala allahu alayh wasalam oo keliya oo waxaa laynoo sheegay malaa'ig inay shafaaco qaadayso walaa yashfacuuna ila liman irtadaa malaa'igtaana la sheegayay malaa'igtu cidduu ilaahay ka raali noqday inuu shafaaco qaadayso ayay aayaddu sugtay waxaa la mida wakam min malakin fi samaawaati laa tugni shafaacatuhum shayan ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa yacni markuu ilaahay ka raali noqde ee u idmo dabadeed inay malaa'igtu shafaaco qaadaysa aayaddu sugtay wakadalika axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam ee saxiixa ah ee muslim saxiixa ku soo wariyey waxa ay sheegaysaa ilaahay baa waxa uu yidhahdaa fayaqulu allahu tacala shafacati almalaa'ikatu washafaca annabiyuun washafaca almu'minuun walam yabqa ila arxamu araaximiin fayaqbidu qabdata min annaar fayukhriju minha qawman lam yacmaluu khayran qad yani waxa weeye xadiidkaas qaybtaasi xadiisulqudsiga tahay waxay tilmaamaysaa ilaahay baa wuxuu yidhahdaa maalinta qiyaame malaa'igtii shafeeco qaada oo nebiyadii shafeeco qaade oo mu'miniintii shafeeco qaade arxamuraaximiinkunbaa hadhay ilaahay baa hadhay marka anigu haddaan hadhayna yani waxa weeye anna markaa dad baan haddaba u naxariisanaya markaasu waxa weeye dad naarta ku jira ayuu ka soo xantoobinaya ilaahay dadkaasoo markaysaga naarta laga soo xantoobinaya waa qaar aan khayr weligood la iman bimacnaa asalkii tawxiidka oo iqraarkiiyo ictiqaadka ahaa iyo kufriyaadka in laga tago intaas mooyaane dad aan wax kale la iman oo khayr kale oo ziyaada aan samaynin ayaa markaysaga uu naarta ka soo xantoobinayaa ilaahay markaasaa dabeedna markaysaga jannada u gelinaya jannada markaasuu gelinaya marka xadiiskaasna muslim baa saxiixa kusoo wariyey muslim ayaa saxiixa kusoo wariyey marka kaasna waxa uu inoo tilmaamayaa oo inoo sheegayaa inay malaa'igtu shafeeco qaadayso oo nebiyadu shafeeco qaadayaan oo mu'miniinta markaysaga ay shafeeco qaadayaan marka shafaacadu inayna maxsuur ku ahayn oo ku koobnayn nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ayay ku tusinaysaa shafeecada nebi moxamed sala allahu alayh wasalam uu la gaarka yahay waxa ugu weyn alshafaacatu alcudmaa shafaacada weynida badan ayaa markaa ugu weyn ashafaacatu alcudmaana waxay tahay waa maqaamka markaa la mahadinayo casaa an yabcataka rabbuka maqaaman maxmuuda yani waxa weeye inuu ilaahay kaa soo bixiyaa laga yaabaa meel la mahadiyo oo khalaa'iqda awaliinta iyo aakhiriintu intuba marka ay mahadiyaan marka maqaamka maxmuudka ee aayadda laynoogu sheegay waxa weeyaan waa shafaacatu alcudmaa shafaacatu alcudmaana waxay tahay waa shafaacada khalqiga loogu shafeeco qaadayo in la kala xisaabo oo qoraxdii marka la soo dhoweeyey halkan dhow laga soo dhigo bannaanna ay tahay meesha la tuban yahay dadka markaa badankoodu markaa wax hadha ayna haysanin ay marka aad u dhididayaan hore loo xisaabi waayo markaa yacni loo kala dareerin waayo janno iyo naar ayay markaa waxay isku wareegayaan oo odhanayaan bal haddayaa ilaahay inoola hadla inuu markaa ina xisaabo marka arrinka noocaas ah ayay dabeed markaa u tegayaan nebi aadam yacni marka ay u tegayaan markaasuu ka cudur daaranayaa markaasay waxa weeye nebi muuse u tegayaan wahaakada ambiyo markaysaga waxaan dhowr nebi bay soo marayaan nebi aadam iyo ambiyadii kale ulilcasmiga ahayd ayay markaa soo marayaan mid walibana waa ka cudur daaranayaa nebi maxamed mooyaane sala allahu alayh wasalam nebi maxamed marka uu u yimaadaan ayuu odhanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam ana laha anay ii sugnaatay ayuu markaa odhanaya markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam sujuudaya carshiga hoostiisa ku sujuudaya ilaahayna ammaanaya oo aad u mahadinaya u ammaanaya markaasu waxa weeye lagu odhanayaa yani shafeeco qaad waa laga shafeecada aqbal markaasaa waxa weeye lagu odhanayaa shafeeco qaad waa laga shafeeco aqbalayaaye wax weydiiso waa lagu siinayaaye sidaas iyadaa ayaa markaa lagu odhanayaa markaasaa waxa weeye waxa uu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam wayuxaddu liya xaddan xad baa lay xadeeyaa oo bimacnaa in baa lay qaydaa lo yahay intaa u shafeeco qaad taas waa shafeecadii dambe markaa ziyaadada ahayd marka nebigu sala allahu alayh wasalam muu odhan ciddii aad doonto la soo bax adiga maanta waxa weeye laysma kaa hortaagayo ciddaad qabsato waa lagu sii daynayaa lama odhan ee waxa uu nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam uu yidhi oo rusushiiyo ambiyada ugu khayr badnaa waxa uu yidhi yani cid baa lay xadaynaya in baa lay xadaynaya la odhanaya intaa u shafeeco qaad intii baan dabeed u shafeeco qaadayaa ayuu markaa u yidhi dadkii kuwii ugu dhowaana kuma odhan shafeecadayda isku halleeya sida hadda markaysaga waxaan waxyaalaha qaarkood ay dadka qaar rumaysan yihiin oo ay odhanayaan yacni sheikh hebel hadduu siduu doonayo loo yeeli waayo naarta gebigeedaba wuu baktiinayaa dad baa waxaa ictiqaadsan oo markaa rumaysan
oo leeyahay weli hebel ama sheekh hebel haddii markaysagaa waxa uu yidhi oo dadka muriidiinta iyo aniga igu taxan haddii qof qura laga cadaabo yacni naarta gebigeedaba yacni waa markaysaga waa baktinaya ilaahay ballanqaadkiisu inuu been noqdaan diidayaaye yacni waxaan samayn lahaa naarta gebigeedaba waa baajin lahaa laakiin waxaan karaahiyaysanayaa ilaahay ballanqaadkiisu inuu been noqdo ayaan markaa karaahiyaysanaya kutub bay ku qoran tahay dad baana ictiqaadsan oo rumaysan marka waxa weeye dadka waxaa ka rumaysan ee ka ictiqaadsan waxay noqonaysaa inay waxa weeye ilaahiyo macbuud inay ka dhigteen oo khasaa'istii ilaahay uu lahaa inay la siiyeen yacni ayay noqonaysaa sheekh cabdiqaadir ama sheekh fulaan marka waxa weeye tan noocaas ah waa mid ka hor imanaysa shafaacadii idanka ilaahay ku xidhnayd waana shafaaca markaysagaa shabbahaysa oo la mid a shafaacadii markaysaga waxaan markaa shirkiyada ahayd ee mushrikiinta iyo markaysaga waxaan markaa gaaladu yacni markaa ay qabtay ee ay ictiqaadsanayd ee keensanaysay waxa weeye inay cid kale caabudaan si ay ilaahay agtiisa uga shafeeco qaadaan taas iyada ahlusunna waljamaaca ma qabaan mana ictiqaadsana markaa shafeecada adduunyada lagu yaqaanoo kale ee heelka adduunye markaysagaa la yidhaahdo kol hadduu suldaan igu xilli igaga xaydaantay xadhiggiisa iga qabo aadmi kale kuma xurmeeyeene miday ka suuroobayso ma aha oo la odhanayo kollayba yacni markaa adigu waxaad tidhi yacni markaa hadal lagugu celin maayo taas lagu markaa yacni ma jirto ilaahay agtiisa ka shaqayn mayso shafaacada ilaahay agtiisa waxay ku xidhan tahay idan iyo raalli ahaansho ciddaa uu ka raalli yahay man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidnih marka idanka ilaahay cid aanu u idmin oo u fasixin inay shafeeco qaado ma shafeeco qaadayso cid aanu u fasixin in loo shafeeco qaadana yacni looma shafeeco qaadayo sidaas yadaa weeyaan anwaacda shafaacadee kale waxaa ka mid ah shafaacada yacni markaa dadka qaarkood oo xasanaadkooda iyo dembiyadoodu ay isleekaadeen ajarkooda iyo khayrkoodu isleekaadeen uu u shafeeco qaadayo nebigu sala allahu alayh wasalam si ay jannada u galaan sida asxaabulacraafkii oo kale waxaa kaloo ka mida dad markaa la amray inay naarta galaan in loo shafeeco qaado yacni inaynay naarta gelin ee laga baajiyo oo ay jannada galaan waa nooc kale oo iyaduna shafaacada ka mid a nooca afraad waxaa ka mid a shafaacada markaysagaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu shafeeco qaadayo dadka qaarkood derajadooda inuu sare u qaado yacni sababtiisa sare loogu qaado sababta nebiga sala allahu alayh wasalam shafaacadiisa in sare loogu qaado noocaasina waxa weeye waa nooc kale oo shafaaca nooca muctasiladu waa ogoshahay oo shafaacada iyo diidaa waa ogoshahay nooca shanaad ee sheikha shaarixu tilmaamay waxa weeye dad inay jannada ku galaan xisaab iyo cadaab la'aanteed inuu u shafeeco qaado nebigu sala allahu alayh wasalam ayaa markaysaga waxaan markaa ka mida waxaana markaysaga waxaan yani waxaa ku tusinaya yani nebigu markuu sheegay sala allahu alayh wasalam 70,000 oo jannada xisaab iyo cadaab la'aan ku gelaya inay jiraan yani cukaashatu ibnu muxsan waxa uu yidhi ilaahay ii bari inaan ka mid noqdo yani markaa taasna waxa weeye nebigu waa u baryay sala allahu alayh wasalam dabeedna waxa uu yidhi ka mid baa tahay nooca lixaad yani inuu waxa weeye abu aalib oo kale shafeecadu ka anfici mayso in laga soo saaro laakiin naarta in laga khafiifiyo gaalnimuu ku dhintay abu aalib gaalnimuu ku dhintay siday ahlu sunna waljamaaca qabaan adiladuna ku asaxday oo axaadiista saxiixa ku soo aroortay aayadduna waa tii ku soo degtay innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa marka waxa weeye in cadaabka laga khafiifiyo ayuu marka uga shafeeco qaadaa laakiin naarta markaysa waxa in laga soo saaro marnaba ugama shafeeco qaadayo nooca toddobaad ee shafaacadu waxa weeye waa in markaa nebigu uu ka shafeeco qaado ama yani nebigu inuu ka shafeeco qaado in loo idmo mu'miniintu inay jannada galaan yani markaa noocaasina waa nooca toddobaad nooca sideedaad ahlulkabaa'irka waa inuu u shafeeco qaado waxaana soo arooray xadiis saxiixa oo odhanaya shafaacatii liahli lkabaa'iri min ummatii shafaacadaydu waxay u sugnaatay inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam dadka ahlulkabaa'irka ah oo ummadayda ka mid ah ayay markaa shafeecadaydu u sugnaatay marka xadiiskaas odhanaya shafaacatii liahli lkabaa'iri min ummatii waa xadiis saxiixa ibnu kasiirna tafsiirkiisa waxa uu ku sheegay yani tafsiirka suuratu annisaa inuu isnaad saxiixa leeyahay turuq kalena inuu leeyahay ayuu sheegay ahlucilmi badan oo kalena waa markaa saxiixiyeen sheikhulalbanina waa ka mid culamada markaa saxiixisay marka shafaacatii liahli lkabaa'iri min ummatii waxa uu daliil u yahay dad ahlulkabaa'ir oo fasaqa ah oo aan fisqigii ka toobad keenin inuu nebigu sala allahu alayh wasalam u shafeeco qaadayo sidaas iyadaa buu markaa daliil ku yaho nas u yahay
qolyaha mu'taziladu nooca waa diidan yihiin xadiiska markii lagu soo arooriyayna waxay yiraahdeen waxaanu li markaysaga nabigu waa shafaaco qaadaya laakiin waxaanu leenahay ahlul kabaa'irku markay ka toobad keenaan ay u shafaaco qaadaya ayaanu anagu qabnaaba yiraahdeen laakiin waxa uu qaadi Abdul Jabbar oo mu'tazilada kamidii uu yiri murji'adu waxay qabtaa murji'adu waxay qabtaa iyagaan fisqigi ka toobad keenin inuu u shafaaco qaadayo murji'ada ahlus sunnah ku magacaabaya mu'taziladuna si aad u fara badan ayay ahlus sunnaha murji'a ugu magacaawdaa oo magaca ay doontaa inay ugu dhajiso marka waxa weeye irjaaga uu doonayo inuu ahlus sunnaha ku dhajiyo qaadi Abdul Jabbar ama mu'taziladu ay rabaana mid qabanaya ma aha yaani shay xaqana magac xun oo lagu dhajiyay yaani mid looga tagaya ma aha يعني مركا لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت بإمام أحمد ويري يعني فول حمل فول حمية وتشبيه وحلا من الوت المامي صفات كإلهي كم إذا أدير مينه أو قتل مينه مركا وحوي شيء حقا هدي مقع فول حن مركا يسأل لقول تشيو ما هم مركا يسأل شيء حقا إلا قتل أو حوي شريعة دينتي هدي لقول مقع عابه ولا إلى هذا الشريعة وإرهاب وعديها يسطى قرآن كوإرهاب ولا إلى هذا وحوي ووحن يعني marka ma aha marka isaga in shariicadii looga tagayo ama diintii looga tagayo magacyada xunxun ee la doonayo in lagu dhajiyo ama la doonayo in lagu fool xumeeyo sideeda qaybood oo marka sheekhu tilmaamay sheekh marka Abdul Aziz al-Harbi la yiraahdo ayaa marka isaga xanaabiyad ku jamciyay sideeda nooc thumma shafa'atu thamanin tuntada waqi'atun bi sharti idni wa rida shafa'atun 'udma wa ukhra fi fi'a takafa'at khayratuhum wa sayyi'ah ليدخل الجنة ثم من أمر به إلى النار ليتقي الحرر ثم التي في رفعة المنازل وقد أجاز هذه المعتزل شفاعة في فئة أن يلجوا بلا حساب ولقوم ولجوا في النار حتى يخرجوا والسابعة تأتي لتخفيف العذاب نافعة كذا شفاعة لأهل الجنة كلهم ليدخلوا برحمتي يعني سداد النوع وشيخ الشيخ ترتيبته وشيخ أيا مركا يساحة مركا شيخ أسنى كفاية ومركا كن ندمير marka ala kulli xaal sidaas ay marka yihiin i'tiqaadka ahlus sunnah wal jamaa shafaacada ay ka qabaan oo ay marka ka rumaysan yihiin halkaas aynu ugu joogo wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka